asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walba aad joogtid kusoo dhawow qaybta xigtaa ee macluumaadka ku saabsan xaaskeyga Jini bay ka ahaatay. waxaa sheekadaani tarjumay saaxiibkay Cabdiraxmaan Xasan Anteeno anigoo mar cadda ayaa kula socodsiinaya. qaybtii hore waxay noo joogtay aniga yaab ayaa iga soo haray waayo su'aal kasta oo niyadeyda ku soo dhacda hore ayay kaga jawaabaysaa aniga oo waliba aanan bishimahayga aysan ka dhaqaaqin oo su'aasha aana afkayga ka soo bixinin. markaas ayaa su'aashii ugu dambeysay aan weydiiyay waxay ahayd aaway amal xagee ayay iga qarsoontay. qaybta xigtaana waxay ku bilaabanaysaa markaas ayaa si jees ay ka muuqatay iigu jawaabto oo waxay tiri amarkaada kaliya ayay sugaysaa oo hal mar inaad u yeerto ayay iyada oo rukuucsan ku imaan doontaa ee u yeer iyada amarkana bixi. markaas ayaan ku iri waan ku baryayaa ee jeeskayga daa jacaylkaygana ha ku jeesjeesin. kadib ayaa waxay hadalkii ay qaadatay oo waxay i weydiisay su'aalo dhowr oo waxay tiri oo ma waxaad rabtaa ayada kuguma filnaanin miya inaad qalbiga ka jebisay kadibna meel cidlaa uga tagtay cadowgiina aad u jebisay soo adiga kama caawinin alkaatuuga inay iyada ay qabtaan oo gacanta ay ku dhigaan adigoo waxaasi oo dhan sameeyay ayaa kadib xaalkeeda iyo waxyaabaha la midka isweydiinaya doqonnimadaada balse ayadoo sidaasi ay tahay xitaa waan kuu sheegi ogowna naxariis aan kaa naxaya kuguma sheegayo balse doqonnimada aad samaysa ayaan ku tusayaa. kaadanta ama saaxiibta amal inkastoo ay ahayd gabadh dhalinyaro ah aadna u yar haddana waxay awooday in ay muddo sanado ah ay ka dhuumato kana cararta alkaatuuga balse caawinta aad adiga alkaatuugii u samaysa darteed ayaa suurto gelisay in iyada gacanta lagu dhigo oo la qabto. waxaa loo kaxeeyay qubada al-nuur si ay ugu cibaaro noqoto qof walba oo sameeya misna ku dhaqma falka ay ku dhaqmaan ama iyada ay ku dhaqantay oo ah inay bashar xiriir la samaysay. haatan adiga caqligaada yar ma suuraysan karaa cadaabta iyo ciilka ay ku jirta amal. haddiise aad doonayso waan ku tusi karaa cadaabta aad gelisay gabadhaasi si aad uga raaxaysatid falkaaga foosha xun. wixii aan aniga sameeyay ma ahayn wax xasuusin u baahan sidaasi aaweed ayaan ugu jawaabay haddii ay badbaado leedahay waan ku baryaa ii sheeg nafteyda xitaa waan u hurayaaye. markaas ayay iigu jawaabtay haatan waxa kaliya ee kuu furan waa inaad oohinta aad iska wadataa sidii aad horey u samayn jirtay. markii aad oohin bogataana waxaa macquul ah inaan helo waddo aan kaaga faa'iidaysto. haa waa run adiga ma tihid haatan waxaana ka ahayn sida agab oo danahayga aan ku fushto wixii aan doonana aan ka samaysto. marka ilaa laga gaarayo arrintaasi oo hawshaasi iiga bilaabanayso adiga ayaan kaa dhigayaa wax aan isku madadaaliyo oo hadalka ma kuu caddeeya dumaashi. qaabka ay u hadlayso kibirka ku jira iyo isla weynida ka muuqata markii aad aragtid dareemahaygii caradii oo dhan ayay kusii kicinayaan. haddana iyadoo sidaasi ay tahay waan u baahnaa iyada si aan uga xasuusto xabiibteyda aan dayacay. waxaa qasab igu ahayd inaan warka u caddeeyo sidaasi awgeed ayaan ugu jawaabay i dhegayso. kadib markii amal aan waayo noloshayda ma jirto wax kale oo aan dabadeed khasaari doono. haddaba haddii ujeedkaadu uu yahay inaad caawiso walaasha ogow inaan aniga ilbiriqsi ka fikiri doonin iyada daraaddeedna wax walbaa u huri doono. balse haddii ujeedkaadu uu yahay aargoosi iyo xiqdi i rumayso cadaabka aan dareemayo wuu ka daran yahay midka ay iyada dareemayso mana jirta qaab kale oo aad igu xanuujiso oo tani iiga daran. si kastood u awood iyo xoog badan tahayna ogow inaadan dili karaynin qof meyd ah oo waa hore dhintay. marka sidee dhaawac u xanuujin karayaa qof dhintay? markii aan intaasi aan ku idhi ayaa intii ay fartii igu soo fiiqday waxay iigu jawaabtay adiga waa qofka u dambeeya adduunkan ee nafhurnimada yaqaana sidoo kalena waxaa tahay qofka u dambeeya ee dareema cadaabta ee dadka kale ay ku jiraan. waqtigan laga bilaabana waa inaad noqotaa qofka ugu dambeeya ee hadla. waxa kaliya ee kuu bannaana waa inaad noqotaa sida boombalo oo kale oo aniga aan maamusho sida aan doonana aan ka yeelo. amarkayga waa inaad fulisaa goorta aan kuu idmana aad hadashaa waqtigii aan doonana aad seexataa xilligaan doonana aad soo kacdaa. waxaadna qosli kartaa kaliya xilliga aan farxadda iyo qosolka dareemayo balse wax dhiba kuma qabo haddii aad maanta oo dhan aad oyso waayo ilintaada oonka iyo haraadka haya ayay iga goynayaan. cadaabka iyo xanuunka aad mari doontaana waa mid aniga aan go-aan ka gaari doono adigana ma lihid wax doorasho ah. arrinta kaliya aan kuu ogolahayna waxay tahay inaad ka fakarto waddadii iyo habkii aad igu madadaalin lahayd ee haatan degdeg u bilow. hadalkeeda iyo erayadeeda ugu dambeeya wuxuu ila noqda sidii foolkaana xanaaq ah oo qarxay oo kale. markaas ayaan cabsi xoogan dareemay waxaana ka fikiray wixii aan ku madadaalin lahaa
wixii ugu horreeyay afkayga uu soo qabtayna wuxuu noqday gabay. Markaas ayaan bilaabay inaan aqriyo. markii aan laba tuduc gabaygii ka marayay ayaan inta aan isceliyay waxaan ku iri oo kaalay adiga yaad ismooday. adiga ma tiid waxaanan ka ahayn gabar jinni ah oo kibirsan, taasi oo wax dareema aanan lahayn ee waxaad igu cabsin gelin kartid soo daa adiga. markaas ayaan wejigaygii ka qarsaday oo ka sii jeestay, aniga oo isku dayaya inaan caqligayga ka saaro si aanan u siinin fursad ay caqligayga ay ku saamayso. waxaan islahaa way kala daadan doontaa kaana qarsoomi doontaa, balse qosol ayayba la dhacday. kadibna si jees ayay igu tiri, oo xaggee doonaysaa markaan inaad u cararto? u malayn maayo inaad helayso meel aad aniga iiga cararto. haddiise aad awood u yeelatay inaad ka carartay gabadhii ku jeclaatay, ogow ka cararista midda aad nacday inay ka daran tahay, ilaa laga gaari doono wakhtiga munaasabka ah ee Shiiriin ay degdeg ku caajisto. waxaan gudagalay inaan isweydiiyo sideen ka yeelaa qofkan xiqdiga iyo cadaawadda daran iyo haya, sideen u eedayn karaa aniga oo sabab u ah cadaabka walaasheed maanta ay dareemayso. waxaan horay uga cararay jacaylka, balse haatan nacaybka ayaa i ceersanaya. markaas ayaan ku iri, waxaad doonto sameey, icaay oo inac, waxba igama gelin waxaas, balse ogow in dhimashada ay noqotay waxaan doonayo oo aan rajaynayo maanta. markaas ayaa iyada oo dhoolla cadaynaysa mar kale waxay igu tiri, ka hor intaanan kaa tegin ogow inaan kula socdo tallaabo walba oo aad qaadaysid, xitaa riyadaada waan kula socdaa ee is aragti dambe insiyahow. markaas ayaa waxaa iga tagay awooddii fikirka, waxaana dareemay daal badan. kadibna waxaan isku tuuray sariirta si aan u seexdo. ma ogi haddii aan gam'ay iyo haddii kale, balse waxaan dareemay fara timaha madaxayga ku ciyaaraya, weliba si tartiiba oo jilicsan. markaas ayaan indhihii kala furay, waxaana arkay waaba Shiiriin oo sariirta ila fadhida, timahana si naxariis leh iigu salaaxaysa. kadibna waxay igu tiri, adiga miyaad ka caraysan tahay waxa dhacay? adiga ayaa igu qasbay inaan qaabkaasi kuula dhaqmo, ee inakeen waxaa la gaaray xilligii aad ogaan lahayd tallaabada koowaad ee aan qaadayno. waase haddii aad doonayso inaad xorayso gacalisadaada kaadantaa oo aad xabsiga iyo cadaabta ay ku jirta aad ka xoraysid. maanta laga bilaabo waxaad raadin ugu dhaqaaqi doontaa insaan, balse insi aanan ahayn. kadibna waad ii keenaysaa. haddiise aadan sidaasi aadan samaynin, waa mustaxiil iyo waxaanan dhici karaynin inaad badbaadiso jacaylkaaga. hadalkaasi markii ay igu tiri ayaan dareemay isku dhexyaac iyo yaab kale, waayo waxaan fahmi waaye macnaha insaan aanan insi ahayn. markaas ayaan weydiiyey, muxuu yahay insaan aan insi ahayn oo xaggeesa ka keenaya, mise waa xujo aniga lay hordhigay? markaas ayay ii jawaabtay oo waxay tiri, adiga ayaa lagaa doonayaa inaad keentid, balse aniga waan kaa caawin doonaa sidii aad u keeni lahayd. aniga sheekada socota ima aysan cuntamin, balse waxaan aad ula yaabay gabadhii kol dhoweyd, sida shaydaanka ii soo eegaysa indhahayda xiqdiga iyo caradana ay ka muuqatay, oo haatan sida qof naxariis badani ay ka muuqatay ii soo fiirinayso. soo la yaab ma ahan sida sahlan ee ay dareenkeeda ay u bedeli karayso. balse su-aashayda taasi ma ahan ee waxa ay tahay, muxuu yahay makhluuqan la aqoon ee ay ii tilmaamayso, xaggeesa aan ka keeni doonaa? waa hal xiraale ay aad iigu adkaatay inaan ka jawaabo, balse markaas ayaan ku iri, makhluuqan aad raadinayso wuxuu yahay, bal wax iiga taabo iyo sababta loo raadinayaba. markaas ayay iigu jawaabtay, wax faa'iido ah ma lahan inaad wakhtiga ku dhimiso su'aalo aan muhiim ku ahayn. iskama aanan waalina waxaan igu jawaabay, koobka khiyaanada horay ayaan u soo cabay oo weliba ciqaabtiisii maanta ayaan marayaa. marka diyaar uma ahi inaan mar kale aan cabo, sidaasi awgeed waa inaad ii caddaysaa wax walba. haddii aadan ii kala caddaynin, ogow inaanan marnaba doonistaada hadalkaada aan ku yeeli doonin. kama aysan helin Shiiriin hadalkii inaan ku adkaysta su-aashaydii ahayd. markaas ayaysi igu tiri, hagaag, haddiiba caqligaada yar uu deeqi karayo waan kuu sheegayaa. waxaana rajaynayaa inuu qaato oo uu deeqo. aqoon-yahanada adduunkeenna muddo haatan laga joogo 10 sano ilaa maantadan la joogo waxay isku dayayaan in ay helaan awoodda maadiga ah ee basharka uu leeyahay. waxayna aqoon-yahanada si ay arrintaasi u suurtageliyaan ay soo direen in badan oo ka mid ah shakhsiyaadka adduunkeenna, si ay dadka ay ula falgalaan oo ay u helaan qaab iyo waddo ay basharka jirkooda ay ugu milmaan. balse dhammaan iskudayadaasi badankoodii fashil ayay ku dhammaadeen, marka laga reebo xaalado aad u yaryar oo dhif ah oo guul laga gaaray. balse dhibka wuxuu yahay in shakhsiyaadka xaaladooda ay guulaystaan markii ay arrintaasi ay ku guulaystaan, halka amarada ay qaadan lahaayeen waxay ku gacan sayraan amaradii alkaatuuga. waxaana amardiidadooda u sabab ah inaysan isku helaynin laba awood oo aatan adduunkeenna iyo midda adduunkiinna.
haddaba amar diidadaasi iyo shakhsiyaadkaasi xaaladaha guulaystay oo suurtagalka noqday inay ku milmaan jirka basharka bini'aadamka fallaaga ayay noqdeen oo waxay sababi u noqdeen alkaatuuga amar weyn inay soo saaraan kaasi oo ahaa in gebi ahaanba mamnuuc ay tahay haatan laga bilaabo in wax xiriir ah lala sameeyo basharka markii laga reebo arrimo dhif iyo naadir ah oo hawshaani tijaabadeeda lagu sii wadaayo taasi oo alkaatuuga kor uu kala socon doono si aysan u dhicin amar diidooyinkii hore oo kale insaan aanan insiga ahayn waxaa laga wadaa shakhsiyaadka ku baasay tijaabada culimadeenna ay sameeyeen kuwaas oo jirka insaanka ku milmay awoodna u yeeshay inay xakameeyaan kadibna alkaatuuga falaagada ku noqday ee haatan ma fahamtay xasanow wax walba oo aan kuu sheegay kadib aniga oo weli baaritaankii shaki badan uu iga baxaya oo aan baaritaankaygii sii wata ayaa waxaan ku idhi waxaad ii sheegtay waa macluumaad sir weyn taasi oo gaar u ah culimada jinniga adiga sidee ayay kuugu suurto gashay inaad sirtaani aad ogaatid oo aad gaaratid wax walba markaas ayay waxay igu tiri magacaygu waa Shiiriin waxba igama qarsoomaan haddii aan doono inaan arrin aan ogaadana wax dhiba iguma ahan taasi ogaanshiyaheeda lahaw markii sidaas ay tiri ayaan ugu jawaabay haddii aysan wax dhib aysan kugu ahayn inaad ogaatid wax walba sidoo kalena wax kasta aad awoodid maxay tahay sababta aad ugu baahan tahay ugana maarmin insaan iska daciif ah oo qabarmooga markaas ayay hadalkeygii xoogaa jeejees intay ka dareentay indha aanan jeclaysan ay ugu soo eegtay oo waxay tiri waxaan ku dhaho ayaad si qasab aad ku fulinaysaa ama diid ama yeel markaas ayaan ugu jawaabay aniga marnaba kaama diidin ee waxaad ii sheegtaa halka aan ka heli karayo makhluuqan si aan ugu tago kadibna aan kuugu keeno weliba isaga oo cambuulo carab saaran ah balse waxaan kaa doonayaa dhankaada inaad ii sharaxdo sida uu makhluuqani amal uu u badbaadin karayo adiga aad ayaad u su'aalo badan tahay una ficil yar tahay balse ogow makhluuqani insiga ah inaanan insi uusan ahayn wuxuu kulansaday wax walba wuxuuna awoodaa in uu ka tallaabo meel walba balse ogow isla markii aan helno isaga oo aan gacanta aan ku dhigno in xaaskaada kaadanta way kuu soo laaban doonto hadalkaasi markii aan maqlay ayaan farxad xoogaa dareemay waxaana ku sigtay inaan farxadda daraadeed aan la boodboodo balse waxaan isweydiiyey sidee ayaad ugu kalsoonaan kartaa qofkan ilaan waa la ogaatii igu dhacday markii igu dambeysay ee aan ku kalsoonaaday qof aanan aqoonine kadibna Shiiriin ayaa inta ay afkaartaydii akhrisatay igu tiri adiga ikhtiyaar ma lihid xasanow ogow taas oo aanan ka ahayn inaad igu kalsoonaatid waxaan weydiiyey maxay tahay sababta aad hawshaani igu xilsaartay aniga waxay igu jawaabtay nasiib xumadaada darteed markaas ayaa si kalsooni ay ku dheehantahay waxaan ku idhi aniga marnaba kuguma kalsooni mana laga yaabo inaan kugu kalsoonaado balse amal daraadeed shaydaan xitaa hab waan u siin lahaa si uu jaxiimo iigu wado markaas ayay hadalkii qaadatay oo waxay tiri horta haatan inamari waxaa la gaaray waqtigii aan ku tusin lahaa sidii aad makhluuqaasi aad ku heli lahayd kadibna waxaad haysataa waqti badan oo aad shaydaanka hab ku siiside Shiiriin waxay bilowday inay barto halka aan ka raadinaya iyo sida dadka aan uga kala sooci karayo waxaana bilaabay inaan gudagala safar cajiib ah oo aan ku raadinayo makhluuqaasi inkastoo dareenkayga uu ii sheegayay in waxa Shiiriin ay ii sheegtay wax ka weyn ay jiraan waxaa ka soo wareegatay muddo toddobaadyo ah welina waxba ma aanan helin muddadaasi Shiiriinna waxay ahayd mid mar walba isoo booqata iyada oo isiin jirtay talooyin cusub iyo amarro cusub maalintii dambe ayaa waxaa si kadis ah aan ku galay maqaaxi aan doonayay inaan cunto fudud aan ka cuno balse si lama filaan ah waxay indhahayga ay ku qabteen sidoo kalena dareenkayga uu soo jiitay qof lahaa tilmaamihii Shiiriin ay ii sheegtay waxaana bilaabay inaan isweydiiyo haddii uu yahay qofkaani qofkii Shiiriin ay raadinaysay iyo haddii kale wax tallaabo ah ma aanan qaadin waxaana dib ugu laabtay goobtii aan ku hoyan jiray balse waxaan u imid Shiiriin oo isugaysa waxay si igu tiri baraaba xasanow kuwii fallaagada wada mid ka mid ah ayaad heshay waxayna u maleeyaan inaad weligood qaban doonin markaas ayaan iri sidee ayaad ku ogaatay waxa dhacay iyo fallaagadaasi aan soo helay markaas ayay iigu jawaabtay adiga wax ma dhaantid kaamira agteeda taala oo wax duubta waxna sawirta oo markaan doono meemorigeeda inta aan galo wixii ku jira aan kala socon karayo meemoriga iyo kaamirada ha ii dambaysay haatan maxay tahay tallaabada xigta ayaan ku iri ayuu yiri waxba naftaada fikir iyo waxyaabo la mid ah ku daalin ee hawshaasi aniga ii daa maxaad kala jeedaa kuma fahmin ayaan ku celiyay muhiim ma ahan inaad fahanto ee muhiimaddu waxay tahay inaad fuliso wixii lagu faro amaradana aad adeecdo hawshaaduna waxay dhammaanaysaa markii aad ii keenta makhluuqaasi waqtigii aan kuu qabto
markaas ayaan ku idhi haddii wakhtigii aad ii qabata aan ku keeni waayo maxaad fulin doontaa waxaanay u tiri waxaad ku qasban tahay inaad disho aniga oo yaaban ayaan ku idhi in naf la gooyo ma sidaas ayay u fududahay mase dilka waxa uu kula yahay wax iska caadi ah waxay iigu jawaabtay waxaas ka bax sidee ayaa jeceshahay inaan u dilo ma madaxa ayaan ka gooyaa mise ciiji ayaan ku dilaa mise madaxaan dhagax uga shiidaa haddii uu jiro dil ka naxariis badan oo jinniga ay soo saareen bal ii sheeg halkaa ha inoo joogta qaybta xigtaa ee macluumaadka ku saabsan xaaskeyga jinni bay ka ahaatay saaxiibka cabdiraxmaan xasan anteena ayaa tarjumay qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo